إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا إلهي سبحانه وتعالى ayaynu mahad celinaynaa rabbigeena kariimka ah ee ina makaniyey ina waafajiyey majliska inaynu waqtiga kan ku kulanno, inagoo insha allah muxaadarada kaga hadli doona istikfaarta iyo faa-iidooyinka ay leedahay, inagoo insha allah ku guda jirnay barnaamijtii aan ugu talagalnay dadka inaynu diinta ugu iftiimino kolba mowduuc aynu insha allah ishaarno. waxaynu insha allah wax ka tilmaami doonaa intuu waqtigu inooga saamaxo. ilaahay subxaanahu wa tacaala oo inuu dembiga kaa baabi-iyo oo kuwa asturo oo kaa daboolo la weydiisto, iyo faa-iidooyinka ay istikfaartu leedahay. walaalayaal, ina lilistikfaari makaanatan cadiima fi ddiin. istikfaartu waxay makaano weyn ku leedahay diinka islaamka. sidaasoo kale dadka mustakfiriinta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala istikfaarta weydiistana, iyaguna ujuur wanaagsan bay ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ka helayaan. himaarta ay leedahay istikfaartu iyo faa-iidadeeda la mahadiyo adduunyada iyo aakhirana laa yuxsiiha ila allah. ilaahay subxaanahu wa tacaala un baa koobi kara faa-iidada ku jirta istikfaarta. walidaalika walaalayaal, waxaa badan qad kahrat الnusuusu alqur'aaniya almurshida ila اlistikfaar. waxaa badan nusuus badan oo qur-aanka iyo sunnadaba salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ku soo aroortay oo irshaadinaysa, oo dadka ku irshaadinaysa inay istikfaarta badiyaan. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay: waman yacmal suu-an aw yadlim nafsah huma yastakfir illaha yajid illaha gafuura raxiima. waman yacmal suu-an, qofkii xumaan sameeya oo dembi iyo macsiyo ay ka dhacdo, aw yadlim nafsah bilmacsiya, ama naftiisa macsiya dulmi ku dulmiya, huma yastakfir illaaha, dabeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala istikfaar weydiisto, alla inuu ka asturo oo ka baabi-iyo alla weydiista, yajid illaaha gafuura raxiima. ilaahay qofkaasi wuxuu ka helayaa inuu alla dembi dhaaf badan yahay oo addoommada u dembi dhaafo, oo ilaahay dembi dhaaf calaa wasni facuul. alla tabaaraka inuu dembi dhaaf badan waa siiqatu mubaalaga. ilaahay naxariis tabaaraka wa tacaala uu naxariis badan yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala meelo kaleo qur-aanka rabbi uu ku tilmaamay istikfaarta oo qur-aanku soo celcelinaya. rabbi wuxuu leeyahay: wاladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum. wاladiina idaa facaluu faaxisha aw dalamuu anfusahum, kuwa haddii ay faaxisho sameeyaan oo xumaani ay ka dhacdo, ama naftooda ay dulmiyaan oo macaasi ay ku dulmiyaan, dakaru llah, alla xasuusta, oo fastakfaruu lidunuubihim, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka istikfaaro weydiista alla inuu u dhaafo dunuubtooda. waman yakfiru dunuuba ila allah, dunuubta ma dhaafo alla tabaaraka wa tacaala ma ahan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku celcelinayaa qur-aanka faa-iidooyinka istikfaarta iyo si rabbi noogu boorinaya tabaaraka wa tacaala. rabbi wuxuu leeyahay: wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. ilaahay cadaabi maayo addoommada mu'miniinta iyo mu'minaadka iyo qofkii alle istikfaar weydiista iyagoo istikfaarta alle ku jira, alla tabaaraka wa tacaala cadaabi maayo.
sidaa darteed waxaa qur-aanku inagu irshaadinaya oo qur-aanku inagu duwayaa inaynu istikfaarta alla tabaaraka wa tacaala badino. walidaalika ilaahay subxana wataala asmaadiisa waxaa ka mid ah alghafaar, alghafuur, gaafiru dhanb. alghafaar walghafuur waa siiq amniyat mubaalaqa wey. ilaahay subxaanahu wa tacaala asturayay addoommadiisa, allihii tabaaraka wa tacaala u dhaafayay khataayaadkooda iyo dunuubtooda wey. gaafiru dhanbina min asmaaءi illaahi ayay iyaduna ka mid tahay. kolka ilaahay in loo toobad keeno oo istikfaar ilaahay la weydiistaa la doonaya. walidaalika alla tabaaraka wa tacala markuu nooga sheekeynaya nuux calayhi assalaam wuxuu ku yihi qowmkiisa faqultu istakfiruu rabbakum inahu kana gafaara. waxaan ku idhi qowmkiisa markuu la hadlayay faqultu istakfiruu rabbakum, rabbigeena istikfaar weydiistaan ku idhi inahu kana gafaara. ilaahay waa rabbi dembi dhaaf badan tabaaraka wa tacaala, addoommada dembiga u dhaafa. ee ilaahay istikfaar weydiista ayaan ku idhi buy yursil samaa calaykum midraara. ilaahay samadu idin sii daynaya, roobku idin sii daynaya, weliba roob badan buu alla samada idinka soo shubaya tabaaraka wa tacaala. wayumdidkum biamwaalin wa baniin. alla tabaaraka wa tacaala wuxuu idin siinayaa awlaad iyo maal iyo awlaad buu rabbi tabaaraka wa tacaala idin siinaya. xoolihii buu alla idin barakeynaya. ilaahay subxaanahu wa taala samadii buu idin sii daynaya tabaaraka wa tacaala. wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. ilaahay subxaanahu wa tacaala jannooyin iyo beerihii buu idin fufinaya. alla tabaaraka wa tacaala beeraha gudahoodana wabiyaal buu idin socodsiinaya. saasuu yacnaha alla tabaaraka wa tacaala yacnaha uu qur-aanka ku tilmaamay istikfaarta iyo sida alla ugu soo celceliyay tabaaraka wa tacaala. walidaalika waxaa sugan ahar yacnaha xasanu basri ka sugan ana rajula ayaa shakaa aljadba, shakaa ilayhi aljadba. nin baa wuxuu uga dacwooday xasanu basri, xaafid ibn xajar baa wuxuu kusoo naqliya fatxubaariga yacnaha abaar iyo angeyg iyo dhulkii iyo abaartiibuu uga dacwooday. kolkaasuu xasanu basri wuxuu ku yihi ninkii faqaala istakfir illaah, ilahay istikfaar weydiisa ayuu ku yihi. ma rabtaa ilahay inuu dhulka kuu fufiyo, abaarta inaad ka baxdo ma rabtaa, istakfir illaah buu ku yihi. ilahay istikfaar ka dalab. wa jaa waxa u yimi washaka ilayhi rajulu aakhar, mid kale haddana u yimi oo wuxuu ka sheeganayaa alfaqra, faqri ka sheeganaya, xoolo la-aan. faqaala xasanu basri wuxuu ku yihi istakfir illaah, ilaahay subxaanahu wa tacala istikfaar weydiiso. wa shaka ilayhi aakhar, mid kale u yimiyo isna jafaafu bustaani, beertiisaoo qallashay buu ka sheeganaya. faqaala wuxuu ku yihi istakfir illaah, ilahay istikfaar weydiiso tabaaraka wa tacaala. wa shaka ilayhi aakhar, mid afraad baa u yimi oo cadama alwalad, awlaad la-aan ka sheeganaya. markaasuu faqaala wuxuu ku yihi istakfir illaah, ilahay istikfaar weydiiso. kolkaasuu huma talaa calayhim qowla allahi caza wajal, wuxuu ku dul akhriyay dhammaantood qowlka rabbi faqultu istakfiruu rabbakum inahu kana gafaara yursil الsamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaali wabaniin wayajcal lakum jannaati wayajcal lakum anhaara. ibn kathiir aayadda tafsiiraya wuxuu leeyahay idaa tubtum ilى allah oo wastakfartumuuh oo waatactumuuh, haddaad ilaahay u toobad keentaan oo istikfaar weydiisataan ood ilaahay ateecdaan, kahura alrisqu calaykum, risqigii baa dushiina ku badanaya. oo wa asqaakum min barakaati الsamaa, ilahay wuxuu idinka waraabinaya samada iyo barakadeeda. ilahay roob buu idin siinaya. oo wa anbata lakum min barakaati اlard, alla wuxuu idin soo saarayaa barakada dhulka ku jirta ayuu alla idin soo saaraya tabaaraka wa tacaala. oo wa anbata lakum azarca, ilaahay zarciguu idin soo saaraya. oo wa adara lakum adarca, ilaahay candhada xoolaha ayuu idin fufinaya. oo wa amadakum biamwaali wa baniin, ilaahay wuxuu idin badinayaa maalkii awlaad, ay acطaakum alamwaala wاlawlaad. oo wajacala lakum jannaatin fiiha himaar,
ilaahay wuxuu idiin soo saaraya o idin yeelayaa jannooyin iyo beero ay himaar ka buuxaan gudaheeda ayuu alla idiin samaynaya tabaaraka wa tacaala. oo yacnaha waa beeraha markuu idiin soo saarana watakhallalaha bilanhaari aljaariya baynaha, webiyana waa idin dhex dhigaya rabbi tabaaraka wa tacaala. idan istikfaartu walaalayaal shanigeedu shani weyn weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka waa kusoo celceliyay tabaaraka wa tacaala. walidaalika walaalayaal sidaa qur-aanku usoo celceliya baa nabiga sunadiisana ay ugu soo noqnoqotay istikfaartu. nabigana waxaa ka sugan xadiis abu hurayra cinda albukhaari kusoo arooray inuu nabigeenu yihi sal ll ly slam wallahi inii laastagfir اllaha waatuubu ilayh fi اlyowm akthara min 70 mara. ilaahay baan ku dhaartaye anigu waxaan alla u istikfaar dalbaa oo ilaahay u toobad keenaa maalintii 70 jeer in ka badan. min xadiis abi hurayra fi saxiix الbukhaari wey. kadalika min xadiis abi hurayra fi sunan الnisaai nabigeena waxa uu salawatu llahi waslam anahu jamaca annaas, nabiga dadkii buu jamciyey wuxuu yihi ya ayuha الnaas tuubuu ilى اllah, dad yahow ilaahay u toobad keena, ilaahay u toobad keena fainii atuubu ilayh fi اlyowmi 100 mara. alla tabaaraka wa tacaala waxaan maalintii u toobad keenaa oo ilaahay u noqdaa tabaaraka wa tacaala 100 jeer. xataa nabigeena salawaatu llahi wasalaamu aleyh saxaabadiisa ridwaan ullahi calayhim majliskiisa ay ka tirin jireen yana istikfaar badan, sida xadiiska abu daud iyo tirmidi min xadiisi cabdillahi bni cumar uu yihi kunaa nacudu lirasuuli illah, waxaan u tirin jirnay nabiga calayhi salaatu wasalaam fi majlis waaxid, hal majlis inuu 100 mara ku oran jiray allahuma اغfir lii watub calaya inaka tawaabu raxiim. ilaahow iga yacnaha ii dambi dhaaf oo ilaahow iga toobad aqbal inaka anta tawaabu raxiim. saasuu nabigu ku celcelin jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh. nabigeena saasuu ku celcelin jiray. xadiiskii bilaal ibnu yasaar ibnu zayd aabihii uu ka warinayey iyo awowgii aabihiina uu ka warinayey ayaa waxa uu yihi anahu samica nabiya yaquul, nabiga oranaya ayaan maqlay buu leeyahay zayd oo yacnaha awowgii ah, nabiga oranaya ayaan maqlay man qaala qofka yiraahdo astagfir اllaha aladi laa ilaha ila huwa alxayu اlqayuum, qofkii sidaa yiraahda astagfir اllaha aladi laa ilaha ilaa huwa alxayu اlqayuum waatuubu ilayh, qofkii sidaa yiraahda gufira lahu waxaa loo dhaafayaa qofkaa dunuubtiisa wain kaana fara min asaxfi, haba noqdo mid ka cararay markay labada ciidan isku siqayaan oo madaxa isla galaan. waad ogtihiin ana alfiraara min asaxfi min alkabaa'ir, in ciidamadu markay dagaalka isla galaan mu'miniinta iyo cadowgoodu in laga cararaa min alkabaa'ir bay ka mid tahay. maca dalik waxaa halkan ka garanaya xadiiska kan in sakaa'irta iyo dunuubta waaweyn ee kabaa'irta ilahay istikfaarta ku baabiya tabaaraka wa tacaala. walidaalika walaalayaal shaniga istikfaartu caadi ma ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala fi jumlati adciyati اlambiyaa, ilaahay markuu ka sheekeynayey ducooyinka waaweyn ee ambiyadii alle ay ku baryayeen waxaa ku jiray inay istikfaarta badinayeen. alla tabaaraka wa tacala markuu nooga sheekeeyey nuux muxuu yihi rabi اغfir lii, nuux baa odhanaya nabi nuux alayhi الsalaam rabi اغfir lii waliwaalidaya waliman dakla beytiya muؤmina walilmuؤminiina wاlmuؤminaat. ilaahayow rabbiyow ii dambi dhaaf buu nuux leeyahy oo waalidkay u dambi dhaaf, oo waliman dakla beytiya muؤmina qofka gurigay gala isagoo muؤminana u dambi dhaaf, walilmuؤminiina wاlmuؤminaat ilaahu mu'miniinta iyo mu'minaadkana u dambi dhaaf. waa nabi nuux, ilaahay istikfaar iyo dambi dhaaf buu weydiisanaya. waa kan nabi ibraahim calayhi الsalaam rabbana اغfir lii waliwaalidaya walilmuؤminiina
yowma yaquumu lxisaab. ilaahow ii dembi dhaaf oo labadeedi waalid u dembi dhaaf oo mu'miniinta u dembi dhaaf maalinta xisaabtu ay qumayso buu leeyahay. waa ka nabigeena salawaatu ullahi wasalaamu calayhi alla tabaaraka wa tacaala uu leeyahay faclam anahu laa ilaha ila allah wاstagfir lidanbika walilmu'miniina wاlmu'minaat. ogow nabi maxamedow oo baro oo ogow ilaa xaq lagu caabudaa koonka ma jiro alla ahayn. maxaa lagu xejiyey wاstagfir lidanbika walilmu'miniina wاlmu'minaat. ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu kuu dembi dhaafo dalab baa laleeyahay, mu'miniintana u dalab ayuu leeyahay alla tabaaraka wa tacala, mu'minaadkana u dalab. sidaa ayuu alla tabaaraka wa tacaala ambiyadiisii ka sheekeynaya. ilaahay subxaanaه wa tacaala cibaadihi اlmu'miniin aladiina jaaءuu min bacdi الصaxaaba, ilahay muxuu yihi wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquluuna rabbana اغfir lana wlikhwanina aladiina sabquuna bاliiman wla tajcal fi quluubina gila liladiina aamanuu rabbana wla tajcal fi quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim. wاladiina jaaءuu min bacdihim waa muminiintii saxaabada gadaashooda yimi, maxay ku ducaysanayaan rabbana اغfir lana ilaahu anaga noo dembi dhaaf oo walikhwaanina aladiina rabbiyo u dembi dhaaf sabaquuna biliimaan imaanka nooga waa saxaabadii ansaari muhaajiriin saxaabadii oo dhan wey. sidaas ayaa alla tabaaraka wa tacaala uga sheekeynaya istikfaarta da'bigii ambiyada iyo mu'miniinta iyo saalixiinta inay tahay. walidaalika waxaa sugan cabdirazaaq fii musanifih ayaa wuxuu ka warinaya ibnu jurayj buu wuxuu ka warinaya cabdirazaq fii musanifihi. ibnu jurayj baa wuxuu ku yihi qultu licataa baa waxaan ku iri atastakfiru lilmu'miniina wاlmu'minaat, war cataayow mu'miniinta iyo mu'minaadka miyaad u istikfaar dalabtaa? ya kolkaasuu yihi nacam haa, maxaa yeelay faqad umira الnabiyu bidalika faina dalika waajib calى اlmuslimiin. haa muslimiinta iyo muslimaadka waanu istikfaar dalbaa buu yihi, maxaa yeelay alla wuxuu amray nebigiisa waana waajib dadka waajib ku ah. qaala allahu tabaaraka wa tacala linabiy, maxaa yeelay rabbi wuxuu nabigiisa ku yihi wاstagfir lidanbika walilmu'miniina wاlmu'minaat. kolkaasaa ibnu jurayj wuxuu ku yihi o afatadacu dalika fi lmaktuubati abada, salaada maktuubada ah weligaa kama aadan tegin miya inaad mu'miniinta u istikfaar dalabtid mu'minaadka? waxa uu yihi cataa la maya. kolkaasu wuxuu yihi qultu waxaan ku yihi, ibnu jurayj baa oranaya, waxaan ku ihi cataa haddaba fabiman tabda-u, markaad istikfaarta aad alle ka baryaysid yaad ku bilowdaa? binafsika am bilmu'miniin, ma naftaadaad ku bilowdaa mise mu'miniinta? kolkaasuu yihi binafsii, nafteydaan ku bilaabaa. qaala allahu caza wajal wاstagfir lidanbika walilmu'miniina wاlmu'minaat. walidaalika walaalayaal waxaa la rabaa qofka mu'minkaa inuu naftiisana ilaahay istikfaar uga dalbo, mu'miniintan uga dalbaa la doonaya oo mu'miniinta uu istikfaartana ku daro. maxaa yeelay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waxaa ka sugan xadiis طabrani fi lmucjam alkabiir uu ku soo arooray min xadiidi cubaad ibni saamit, nabigana wuxuu yihi man istakfara lilmu'miniina wاlmu'minaat, qofka u istikfaar darbo alle istikfaar u weydiiyey inuu alle u dambi dhaafo mu'miniinta mu'minaadka, kataba allahu lahu, alla qofkaa wuxuu u qorayaa bikuli mu'minin wa mu'mina, mu'min kasta iyo mu'minad kasta xasanatan buu alla ugu qoraya. allahu akbar. allahuma اغfir lilmu'miniina wاlmu'minaat wاlmuslimiina wاlmuslimaat alaxyaaءi minhum wاlamwaat ayaa yakunu lahu uu ku yana bikuli mu'mini wa mu'mina oo min almuslimiina wاlmuslimaat wاlmu'min wاlmu'minaat almutaqadimiina minhu wاlmutaahiriin xasan uu qofku ku yeelanaya. ma arrin sahla arrinka, arrin sahla ma ah. walidaalika sida uu imaamu bayhaqi fi shucab اliimaan kusoo naqlinayo kitaabkiisa
waxa uu ka warinaya cabdullahi bn mubaarak dhaqan uu lahaa, wuxuu u yihi anahu kana idaa khatama alqur'aan, cabdullahi bn mubaarak markuu qur'aanka rabi dhameeyo dhamaystiro oo khatimo, akhara ducaaءahu lilmu'miniina wاlmu'minaat, wuxuu badin jiray inuu u duceeyo mu'miniinta iyo mu'minaadka ilaahay subxaanaه wa tacaala ayuu u baryi jiray mar kastoo qur-aanka ilaahay subxaanaه wa tacaala u khatimo. walidaalika waxaa jira ahar isaguna abu naciim fi lxilya uu kusoo naqlinayo oo axmed ibnu daxaak alkhashaab ayaa wuxuu leeyahay, ninkaasi oo salafkii ka mid ah, axmed ibnu daxaak baa wuxuu leeyahay ra-aytu waxaan arkay fii maa yara annaa'im, qofka hurdo wuxuu riyada ku arko ayaan waxaa ku arkay shurayx ibnu yunus ninkii la yihahdo isna kamida salafkii, shurayx baan riyo ku arkay buu yihi. kolkaasaan waxaa ku yihi ya abaa shurayxow maa facala bika rabuka, wuxuu ku yihi wuxuu ku yihi yacnaha maa facala bika rabuka ya abaa xaarith, kunyadiisa ugu yeera, abaa xaarithow ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu kugu sameeyey, ila wuu riyooday wuu geeriyooday riyadu ku arkay marka. kolkaasuu yihi gafara lii, ilaahay waa ii dambi dhaafay. wa maca dalika jacala qasrii ilaa qasri muxamed ibnu bashiir ibnu caطaa alkindi, ilaahay daartaydana wuxuu deris kala dhigay daartii muxamed ibnu bashiir ibnu caطaa alkindi ayuu ilaahay derisna igala dhigay, waana ii dambi dhaafay buu yihi. kolkaasuu wuxuu yihi axmed ibnu daxaak ya abaa xaaris anta cindana akbaru min muxamed ibnu bashiir ibnu caطaa alkindi, adigu waad nagala weyn tahay, waa nagala manzilo weyn tahay maxamed ibnu bashiir. kolkaasuu laa taqul daka, sidaa ha oran, faina allaha jacala limuxamed ibnu bashiir ibnu caطaa alkindi, alla wuxuu u yeelay buu yihi xadan fii camali kuli mu'mini wa mu'mina, ilaahay wuxuu u yeelay inuu nasiib ku yeeshay maxamed ibnu bashiir qof kasta oo mu'miniinta kamida camalkii iyo gabar kasta oo mu'minada camalkeed ayuu nasiib uga yeelay. liannahu kaana idaa dacaa qaala, muxuu ku helay marka maxamed ibnu bashiir yacnaha inuu qof kasta ku yeesho xad iyo nasiib iyo ajar ka helo. wuxuu yihi anahu kaana waxa uu ahaa maxamed ibnu bashiir idaa dacaa markuu ducaysanay qaala wuxuu ohan jiray allahuma kfir lii lilmu'miniina wاlmu'minaat wاlmuslimiina wاlmuslimaat, ilaahu ii dambi dhaaf aniga iyo qof kastaoo mu'miniinta kamid ah iyo mu'minaadka muslimiinta muslimaadka, saasuu ku ducaysan jiray. walidaalika ayaa ilaahay deris igala dhigay buu yihi. haddaba walaalaha mu'miniinta ahu, istikfaarta kunuus waaweyn baa ku jira, faa'iidooyin waaweyn baa ku jira. faa'iidooyinkaa ku jira waxaa kamid ah oo cajaa'ibta kamid ah, haddaad aragti nusuusta sharciga ah, alla tabaaraka wa tacaala wuxuu meelo badan ku xiriiriyey kelimada ugu fadli badan cala lidlaaq oo ah laa ilaaha ila allah, ayuu alla tabaaraka wa tacaala meelo badan ku xiriiriyey. muxuu ku xiriiriyay istikfaarta? alla tabaaraka wa tacala wuxuu leeyahy nabigeena faclam anahu laa ilaha ila allah, maxaa lagu xejiyey wastakfir lidanbika walilmu'miniina wاlmu'minaat. istikfaartiiyo laa ilaha ila allah baa la isku xiriiriyey. alla tabaaraka wa tacala wuxuu leeyahay anlaa tacbuduu ila allah inanii lakum minhu nadiiru wabashiir, maxaa lagu xejiyey waan istakfiruu rabakum uma tuubuu ilayh. alla tabaaraka wa tacaala fi suura fusilat muxuu markuu nabiga amray muxuu yihi qul inamaa ana basharu mithlukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid. fiirihad waxaa la isku xiriiriyey alla tabaaraka wa tacaala tawxiidkiisa maxaa lagu xiriiriyey marka faاstaqiimuu ilayhi wastakfiruu. qul inamaa ana basharu mithlukum, anigu waxaan ahay ku dha nabi maxamedow bashar idinka idinla mida, yuuxaa ilaya
أنما إلهكم إله واحد waxaa la ii waxyooday ilaah lagu caabudaa kownku ma jiroon ilaah أنما إلهكم ilaahiinu ilaah waaxid inuu yahay kolkaas ayaa rabbi wuxuu leeyahay فاstaقimuu إlayhi واstغfiruu ilaahay u hogaansama tabaaraka wa tacaala oo ilaahay istikfaar weydiista markii nebi huud ka sheekeyn rabbi muxuu yihi وإilىa caadin akhaahum huuda muxuu ku yihi marka yaa qowm اcbudu الlaha maa lakum min ilaahin غayru aakhirka damba imow muxuu yihi وyaa qowm اstغfiruu rabakum qowmkayo ilaahay subxana toobad keena istikfaar weydiista وyaa qowm اstغfiruu rabakum ثuma tuubuu ilayh kolka ilaahay wuxuu ku xijinayaa istikfaartii iyo laa ilaaha ila اllah buu meelo badan isku xidhiidhiy xataa majaalista laqwiga iyo dadku ay ku hayaan allah tabaaraka wa tacaala calaa lisaan rasul wuxuu noogu sharciyeeyey qofku markuu ka kacayo si wixii laqwigo ka dhacay loogu dhaafo muxuu nabigu yihi qofku wuxuu ku ducaysanayaa subxaanaka allahuma rabbana waa soo aroortay subxaanaka allahuma wabixamdikana waa soo aroortay labada lafti way kusoo aroortay subxaanaka allahuma wabixamdika laa ilaha ilaa anta astagfiruka wa atuubu ilayk waa caqiba majliska markaad ka kacdi inaad ducaau majliska kafaaray u tahay marka salaada loo weyse qaato aakhirkeeda maxaa lagu gebagabeeyaa ashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir ashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah وأشhهd أنa محamdا cabdه ورasuله allahuma اجcalnii min التawaabiina واجcalnii min الmتطahiriin taasaa lagu khatimaya haddaba ynbagii lilcabd ama lilmuؤmin an laa yaqnada min raxmat الlah waxaa haboon marka qofka muؤminka ilahay raxmadiisa tabaaraka wa tacala inuusan ka quusan alla tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaanaه wa tacaala inaad istikfaar weydiisano ilaahay raxmadiisa aynan ka quusan baa la doonaya allah tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay qul nabi maxamed waxaad ku tiraahdaa yaa cibaadiya aladiina asrafuu calى anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah addoommadayda naftooda ku xadgudbay macaasi iyo dunuubta kula xadgudbayow ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa ha ka quusanina alla tabaaraka wa tacala leeyahy laa taqnatuu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim ilahay dunuubta dhammaantii isagaa dhaafa alla tabaaraka wa tacala waa rabbi naxariis badan oo dembi dhaaf badan haddaba cabdullahi bni cabaas xabru hadihi lumma wuxuu yihi markuu aayaddaa tafsiir saarayay man aayasa cibaadahu min الtawba bacda hada faqad jaxada kitaab allahi tabaaraka wa tacaala qofka ka quusiya alla tabaaraka wa tacaala addoommadiisa inay u toobad keenaan aayaddaa ka damow ilahay kitaabkiisa tabaaraka wa tacaala ayuu beeniyey buu yihi man aayasa cibaadahu min الtawba bacda hada faqad yacnaha kadaba ama faqad jaxada kitaab allahi buu yihi cabdullahi bn cabaas radia allahu canhuma kolka addoommada inay toobad keenaan baa la doonaya miyaadan qur-aanka akriyin ilahay isagoo nagu soo celcelinayay alam yaclamuu ana allaha huwa yaqbalu tawbata can cibaadi miyaysan ogeyn alla inuu yahay midka ka toobad aqbala addoommada ilaahay subxaanahu wa tacaala saasuu leeyahay wman yacmal suuءa aw yadlim nafsah ثuma ystagfir illaha yajid illaha gafuura raxiima buu rabbi tabaaraka wa tacala le alla tabaaraka wa tacaala munaafiqiin ayuu ilaahay leeyahay ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min الnaar walan tajida lahm nasiira muxuu rabbi ku xujiyey ila aladiina taabuu waa munaafiqiin alla wuxuu leeyahay munaafiqiintu naarta meesha ugu hooseysa ka gelayaan qof u gargaarana u heli maysid ila aladiina taabuu kuwa ilahay u toobad keena ma ahan ilaahay fi nasaara muxuu leeyahay kuwa ilaahay u shariik yeelay ilahay wuxuu leeyahay laqad kafara aladiina qaaluu
ina allaha thalithu thalaatha way gaaloobeen kuwuu yihi alle saddex midkood wey. wamaa min ilaahin ilaa ilaahu waaxid, ilaah ma jiro ilaa ilaaha waaxidka keliga ma ah. rabbi wuxuu yihi, rabbi tabaaraka wa tacala, laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha thalithu thalaatha wamaa min ilaahin ilaa ilaahu waaxid. ee hadday ka joogaan buu leeyahay, wain lam yantahuu camaa yaquuluun layamasana aladiina dalamuu layamasana aladiina kafaruu. rabbi wuxuu leeyahay wain lam yantahuu camaa yaquuluun layamasana aladiina kafaruu minhum cadaab aliim. ilahay muxuu ku xujiyey, afalaa yatuubuuna ilى اllahi wayastagfiruuna wallahu gafuur raxiim. allahu akbar. afalaa yatuubuuna ilى اllah wالnasaara, miyaysa ilaahay u toobad keenayn oo wayastagfiruuna ilahay istikfaar weydiisanayn. wallahu gafuur raxiim buu rabbi leeyahy jala jalaaluh. ilaahay saasuu leeyahay. ilaahay gaalada kufaarta muxuu leeyahay, ina aladiina fatanuu lmu'miniina wاlmu'minaat huma lam yatuubuu. kuwa gaalada ee fitnaynaya, cadaabaya mu'miniinta iyo mu'minaadka haddaysan toobad keenin buu leeyahay. walidaalika ayuu oranayey, waxaan filayaa inuu ahaa daxaak ama mujaahid, labada midkood way, waxa uu yihi, unduruu hada alluطfa wاljuuda. arka buu leeyahay juudka iyo karamka alla tabaaraka wa tacaala. uu leeyahay ina aladiina fatanuu lmu'miniina wاlmu'minaat huma lam yatuubuu. unduruu hada alluطfa wاljuud buu leeyahay. qataluu awliyaa'ah, ilaah awliyadiisay dilayaan, wa huwa yadcuuhum, allana wuxuu ugu yeerayaa ila almakfirati, ila atawbati walmakfira. ilaahayna kaala toobad keena oo iyo dembi dhaaf buu allana ugu yeeraya, alla tabaaraka wa tacaala. walaalayaal, waad ujeedaan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala baabu tawba u furay. walidaalika nabigeena sala allahu alayhi wasalam aad iyo aad buu istikfaar iyo toobad badnaa. ilahay waxa uu leeyahay, inaa fataxnaa laka fatxa mubiina liyagfira laka allahu ma taqadama min dembika wma taأhara wayutima nicmatahu calayka wayahdiyaka siraata mustaqiima. ilahay subxaanaه wa tacala markuu fatxiga mubiinkaa ugu bishaareeyey nebiga, ilahay wuxuu liyagfira laka allahu ma taqadama min dembika wma taأhar, si alla kugu dhaafo dembigaagii hore iyo kii dambaba, oo ilahay nimcadiisa kuugu taam yeelo, wayutima nicmatahu calayk wayahdiyaka siraata mustaqiima. caaisha radia allahu canha, xadiis saxiixeyn kusoo arooray ee nabiga ka waranayso, nabigay ka sheekanay siduu ku ahaa daacada ilaahay. waxay tihi, kaana nabigeena waxa uu ahaa idaa salla, haddii uu tukanayo, qaama xataa tatafatara qadamaa, nabigu waa taagnaan jira ilaa gomadihiisu ay dildilaacaan. faqultu lahu, waxaan ku idhi, yaa rasuulka allow, atasnacu haada, ma saasaad samaynaysaa, waqad gafara laka allahu ma taqadama min dembika wama taأhara, adigoo ilaahay gafkaagii hore kii dambaba kuu dhaafay, miyaad sidaa yeelaysaa? kolkaasuu yihi, yaa caaishatu, caaishaay, afalaa akuuna cabda shakuura, miyaana noqonayn adoon shukriya buu yihi. afalaa akuuna cabda shakuura. walidaalika nabigeena salawatu llahi wasalaamu calayh ma jiro qof yacnaha dembigiisii iyo dembigiisii hore kii hore la dhaafay oo nabiga ahayn. walidaalika ayuu ibnu kathiir yahda markuu aayaddan tafsiirayo, inaa fataxna laka fatxa mubiina, ibnu kathiir wuxuu yihahdaa hada min khasaa'isihi salawaatu اllahi wasalaamuhu calayhi alatii laa yushaarikuhu fiiha gayru. waxay ka mid tahay khasaa'istii nabiga salawaatu اllahi wasalaamu calayh oo uusan qofna la wadaagin. laysa fi xadiiثi صaxiixi fi hawaabi اlacmaali ligayrihi gufira lahu ma taqadama min denbihi wama taأhar. ma jira xadiis صaxiixa oo ku soo acmaasha iyo fadligooda oo nebiga kayrkii ugu sugnaaday
in dembigiisii hore iyo kiisii horeba la dhaafay ma jira ayuu yihi. wa hada fiihi tashriifun cadiimu lirasuuli lah, arrinkaana waxaa ku sugan sharaf weyn oo nabiga u sugnaaday salawaatu llahi wasalaamu caleyh. wa huwa nabigu fi jamiici umuurihi cala aacati walbiri walistiqaama. nabigu wuxuu ahaa dhammaan fi jamiici yanaha awqaati ama fi jamiici umuurihi mid taaco iyo biri iyo istiqaamo ku toosan buu ah salawaatu llahi wasalam. istiqaamadaas iyo toosnida iyo taacadaas oo lam yanalha basharun siwaa, uusan gaari karin nabiga bashar ka soo haray. wa huwa buu yihi marka ibnu kathiir raximah llahu, wa huwa akmalu lbashar cala lidlaaq. nabigu wuxuu ahaa midka ugu kaamilsan basharkooda cala lidlaaq, wa sayiduhum fi dunya walakhira, wuxuuna ahaa sayidkoodii adduunyada iyo aakhira. nabigeena saasuu ahaa marka. maca dalika salawaatu llahi wasalaamu calayhi istikfaartuu ku dadaali jiray, oo saxaabadu waxay ka tirin jireen inuu istikfaar badnaa salawaatu llahi wasalaamu caleyh. waxaa soo arooray nabigeena marka siiqooyin badan oo nabigeena calayhi salaat uu istikfaarsan jiray. inaad wax ka ogaataa loo baahan yahay si aad u baratid. nabigeena calayhi salam waxaa ka sugan xadiis ibni cumar oo abu da tirmidi ku soo arooray siiqo kamida siiqooyinka nabiga, oo nabiga uu yihi ibni cumar kunaa nacudu lirasuuli lah, nabiga waxaan u tirin jirnay fi lmajlis waaxid 100 mara, 100 jeer inuu oran jiray. muxuu oran jiray? rabi ikfir lii watub calaya inaka anta tawaabu raxiim. waa siiqo kamid siiqooyinka istikfaarta loo sameeyo. rabi ikfir li, ilahu dambi dhaaf, watub calaya, iga toobad aqbal, inaka anta tawaabu raxiim. siiqada waa soo aroortay. waxaa kaloo soo aroortay siiqada xadiis shadaad ibn aws ee ugu atamsan oo sayid istikfaar la yidhaahdo, oo ku soo aroortay inuu nabigu ku ducaysan jiray allahuma anta rabbii laa ilaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa wacdika ma statactu acuudu bika min shari ma sanactu abu'u laka binicmatii calaya abu'u laka bidanbii faغfir lii fainahu laa yagfiru dunuuba ila ant. ducadaas waa sayid اlistikfaar, waa iyadana waad ku istikfaarsan kartaa. waxaa soo aroortay xadiiska abu bakr fi saxiixayn siiqo kaleeto ku banaan oo nabigeena ka sugan. isagaana weydiiyey abu bakr, wuxuu yihi ana abubakr ayaa qaala linabiy, nabigu wuxuu ku yihi calimnii ducaaa adcuu bihi fi salaati. rasuulka alla waxaad ii bartaa duco aan salaadeeda gudaheeda ku ducaysto. kolkaasuu nabigu qul waxaad tirahdaa allahuma inii dalamtu nafsii dulman kathiira, ilaahu waxaa nafteyda dulmiyey dulmi aada u tiro badan. laa yakfiru dunuuba ilaa anta, ilaahu dunuubtana ma dhaafo ilaa adiga ma ahane. ee fakfir lii makfirata min cindika warxamnii, ilaahayow ii dembi dhaaf, dembi dhaaf agtaada oo ilaahow ii naxariiso, inaka anta algafuur الraxiim. riwaayaddii ibn cumar maxaan kusoo marnay inaka anta tawaab, labada siiqa way jirtaa. kolka inaka anta algafuur الraxiim, ilaahu waxaa taa mid dembi dhaaf badan naxariis badan, ilaahow ii dembi dhaaf. siiqadaana waad ku istikfaarsan kartaa. kadalika xadiiska abi muusa fi saxiixayn, isagana nabiga waxa uu ku ducaysan jiray oo oran jiray allahuma kfir lii allahuma kfir lii khatii'atii, ilahu gafafkayga ii dhaaf. allahuma kfir lii khatii'atii, ilahu gafafkayga ii dhaaf. oo ducadu waa dheer tahay, waqtigiina waa iga dhamaaday. allahuma kfir lii khatii'atii, ilahu gafafkayga ii dhaaf. oo wajahli ii dhaaf, oo israafi fi amri ii dhaaf, ilaahu waxaad igu og tahay ilaa aakhiri xadiis. marka siiqooyinkaas oo dhan way banaan yihiin oo qofka inuu ku istikfaarsado. ilaahay subxaanahu watacala waxaan ka baryaynaa kuwa ilaahay u noqda oo dunuubta ka noqda, istikfaar weydiista, oo ilaahay subxaanahu watacala u toobadkeen inuu naga dhigo. wajazakum allahu khayr, wasali allahuma wasalam calى sayidina muxamedi wacalى alihi wa asxaabihi ajmaciin.